السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaashin uma Mansuur waa videogeeni challenge ahay challenge-geeni quruxda badnaay oo 70 eer ahay waay soo dhawaada waxaan ku dhahay gabar kasta oo videogan ku cusub yahay videogan waa challenge waqti aad iyo aad u dheer aan soo wadnaa soo dhawaaw gambarkaada soo qaado videogan fiirso waa ka heli doontaa mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay because challenge-gan waqti aad iyo aad u dheer ayaan soo wadnaa gabdhii soo daawanay intaas oo ogaay oo waqtiga dheer la socday way og yihiin waqti aad iyo aad u dheer aan wadnaa alxamdulillah waa ilaahay mahadiis ilaahay ayaa noo fududeeyay laakiin waxaan ani aaminsanahay ilaahay ayaa noo fududeeyay oo noo waafajiyay inaan waqtiga intaas la eg aan wadno laakiin waxaasoo dhan waxaan ku sameynay sabar adkaysi inaan budget sameysanay oo noqonay gabdho maaragtay dhaqaalaha soo galay dhaqaalaha ka baxa qoro oo gabdho budget la soo qofku haduusan budget hays uusan sameysan wixii uu dhigay dib ugu noqonaa qof hadaa aragtid wax inta meel dhigay aanan dib dambe ugu noqon waa qof budget sameystay maadaama aan budget sameysanay oo budgetkii aan joogteynay ayaa noo fududeeyay inaan challenge-ga intaas waqtiga leeg aan soo wadno hadda videogan waa videogii ugu dambeeyay oo sanadkan 2024 kiisi ayaan duubaynaa maanta bisha waa 30 beriyo 31 ayay ku eg tahay haduu ilaahay nabad nagu gaarsiiyo sidaa darteed in 12 bilood oo aan soo wadno sanadkaana iyo 4 bilood sanadka horeeto waxaan wadnay 16 bilood 16 kaas bilood inaan 70 eer gasaca ku ridno waxaan noo fududeeyay ilaahay ka sokow inaan budget sameysanay inaan noqonay gabdho sabray inaan noqonay gabdho go'aan gaaray gabdho ay ku maaragtay ka go'anta inay lacagtaas dhigaan duruuf kastay ku sugan yihiin iyo lacag kastay u baahdaan iyo wax kastoo kusoo kordho inay ka go'anta 70kaas eer inaan dhigno maasha Allah hadda gasaca lacag aad u badan ayaa ku jirto oo maaragtay ilaahay maaragtay hanoo barakeeyo gabdho badanaa jiro oo nala bilaabay oo naga haray oo haddana mar labaad nala bilaabay oo naga haray laakiin sida horeba loo yiri maalinkaan dhammeeno oo guusha aan gaarno ayay farta gacan ay gadaal ay qaniini doonaan maalinkaas ayay wixii dareemayaan guul darada because way nala bilaabeen laakiin way naga hareen marka wax kasta markay bilowgiin dad fara badan lagu bilaabaa laakiin gadaal ayaa lagu kala harayaa sidaa darteed challenge-geena alxamdulillah ilaahay noo fududeeyay gabar kasta oo rabta inay wax meel dhigto haddaad rabtid waxaa meel dhigtid inaad ka daba tegin waxaa ku caawinayo inaad budget sameysatid haddaadan budget sameysan oo waxa ku soo galay waxa ka baxo eesa kuu qorneen oo aadan ogeyn dhaqaale meeqa bishii awoodaa inaad dhigto emergency ma haysataa kayd guriga ma ku yaala waxaasoo dhan haddaad haysan wax meel ma dhigi kartid haddaa dhigtana dib ugu noqonay si aadan marka dib ugu noqonin waxaa sameysaa kow buug iyo qalin qaado qor raali noqday maazim codkiisa la maqlay marka buug iyo qalin qaado kadib wax dhigid way kuu fududaanay marka buug iyo qalin qaadatid wax dhigid way kuu fududaanay waxa meel dhigtidna kama daba tagaysid marka gabar kasta waxaan kula talinaa inay buug iyo qalin qaadato waxa ugu muhiimsan waa inaad buug iyo qalin qaadatid mar haddaa buug iyo qalin qaadatid wax kaa halaabaya male lacag kasta oo dhigtidna ma ka daba tagaysid laakiin maalinkaa bilaa buug iyo qalin noqotid wax kastoo meel dhigto waa ka daba tagay $1 hadeeta €1 hadeeta tii ka daba tagtaata sababta buug iyo qalin meysatid sababta wixii waxaa dhigtaadoon xisaabtamin adoon ogaanin maxaa dhigi kartaa ayaad dhigtay sidaa darteed dibaad ula soo baxee ama wax emergency meel kuma yaala hadday wax kugu soo baxaan ama wax si kaa noqdaan sidaa darteed guusha dhaqaalaha waxay ku jirtaa inaad buug iyo qalin qaadatid isxisaabintaa lagu xisaabin haddaa rabtid inaad wax dhigatid gabaray waa inaa xisaabtantaa gabar aan xisaabtamaynin wax ma dhiga karto gabar aan rabin inay qorto dhaqaalaha soo galo wax ma dhiga karto gabar aan rabin waxa ka baxaya inay qorto wax ma dhiga karto gabar aan rabin inay emergency meel dhigato wax ma dhiga karto gabar aan aqoonin waxaan maanta uma baahni maalin kaleeta uga baahi badanaa gadanaa wax meel ma dhiga karto gabar wixii kasta iska aragtaba iska rabto wax ma dhigan karto gabar haddii la dhoo lacag soo dir haye dhees wax ma dhigan karto waa inay wax xuduud dhaqaalaha xuduudo badan in loo sameeyo u baahan yahay goormeed wax gadane goormeed wax gadaneen waxaan ma u baahanta mise waa rabtaa labay kala ta rabitaan iyo baahi laba arrin oo shaqo isku lahayn waay sidaa darteed markastaa xisaabtantid aa ogaatid maxaa rabtaa maxaa u baahan tahay maxaa ku yaalo maxaa kaa maqan
wax dhigid way kuu fududeyne waxaan kaa codsanayaa videoga ilaa internet inaad kusoo gaartay inaad like ii saartid share dhahdid commentigana ka bixisid challengegan haddaad gabdhaha ku jirano hoos kusoo qor maxaad dareemaysaa maadaama 16 bilood noo buuxsantay dareen noocee la eg ayaa dareemaysaa videoga markaa daawanaysid sidaa darteed aan isku dayno inaan wax uun meel dhigi karno challengegan waxa aan u sameeyey wuxuu ahaa gabdhaha ay ku adagta inay meel wax dhigaan gabdhaha jiray ugu dhow Mansuur wayba nugu adagta lacag inaan dhigno gabdhahaasaan ugu talagalay challengegan oo dhaheen shilinka meel dhigno waa la soo baxeena ay iga codsadeen ugu dhow Mansuur challenge noo bilow sababta waqtiga u dheereeyay taasaa keentay gabdho badan ay ugu dhow Mansuur waqtiga maxaa u dheereeyay waxaan waqtigaas dheer uga dhigay si aan nafta ugu tababarno oo nafta loo tarbiyeeyo because waxa lagu leeyahay 30 bari waxa sameeyso waxay noqonay wax caadadaada kamid ah marka maadaama aan 22 bilood challengegan oo soconayo gabadhii ka qayb gasho bilow ilaa dhamaad wado hadhow way u fududaanay inay meel wax dhigto oo aysan ka daba tagin sidaa darteed aan challengegan fikirka loo aas-aasiyay sababta aan u bilaabo taas waay because gabdho badan aan marmar weydiiyo Mansuur waay u dheeriya maxaa challenge dheer uga dhigtay because nafta marka edbinays wuxuu waa inay ku celcelis marka maadaama bil walba dhigayno 22 bilood qofka xaalado kala duwan aan la kulmi karo dhaqaalihiisa isbedel weyn aan ku imaan karo hadduu shaqeynayo shaqo la'aan uu noqon karaa hadduu shaqo la'aan ahay shaqo u tegi karaa waxyaalo badan aan kusoo kordhi karo marka waxaa laga yaabaa 22 bilood daruufo badan inay kusoo maraan haddana waxaa lagaa rabaa inaad 70 dhigtid xaalad kasta ku suganta iyo daruuf kasta ku suganta 70 inay dhigtida laga rabaa sida darteedan u dheereeyay waxaan rajeynayaa gabdhaha oo challengegan ku jiro inay u fududaan doonto inay waxay meel dhigaan aysan ka daba tagin oo cabshir fiican iyo tababar fiican oo challengegan u noqon doono because aniga in la hadlayo weligay challenges u dheer ma aana sameyn sida darteed aan boowan ku faraxsanahay inaan challengegan aan sanadkan 2023 bishii 9aad aan bilawnay waa ilaahay mahadiis maanta waxaa la maraa 2024 bishii 12aad 30keed waa videoga marka idin duwa bariyo 31 idin soo dhaca doolaa uu dala ka raali noqdo marka gabar kasto waad awoodaa inaad wax sameyso waa awoodaa inaad wax dhigato laakiin go'aanka gaar waxa kale oo ka maqan waa go'aanka mar hadaa go'aanka qaadatid wax ka halaabay male gasaca hadda aad u buuxa because lacagta wax badan duudubnay marka uu buuxa inaan bedelaan aan maaragtay ku rajo weynahay laakiin weli fursad ma u tagin aan dukaanka inta tago gasac cusub soo gado sidaa darteed laakiin waxaan ku rajo weynay gasaca inaan bedelo marka waxaan idin leeyahay gabdho challengegan gabdhaha ku jiro aad ugu mahadsantihiin intaas aad soo wadeen aad soo joogteyseen maaragtay hadalkayga maqasheen oo wixii ay ila bilowdeen oo gabdhihii maaragtay ka harayna ila soo wada socodsiiyey waa mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego hadduu ilaahay ka raali noqdo 2025 January challenge cusub aan bilaabaynaa gabdhaha kan ku jira daartiin waa soo gali kartiin inkastoo ay u badan yihiin gabdho wada cusub challengegaas wuxuu noqon doonaa 100 oo asaga noqon doonaa oo asagana sidaas oo kale aan maaragtay aruurinayno waxaan wadaynaa bisha 1aad ilaa bisha 6aad aan wadaynaa 6 bilood waay haddana waxaan bilaabaynaa 7aad ilaa 12aad ani waxaan rabay sanadkan inaan isku xiro laakiin gabdhaha ugu dhow Mansuur noo kala jar si samarka lacagta aan u isticmaalno oo gabadhii holiday aadaysan holidayga ugu darsato gabadhii rabta inay maaragtay samarka ilmaha maaragtay maadaama samarka uu ka qarash badan yahay bilaa caadiga oo samarka si u isticmaalaan gabdhaha challengegan ku jirana dee lacagtaana u sii badanayso 6 bilood iyo kan marka isku darsadaan lacag fiican ay u noqonaysaa wax badan ay samarka u qabanaysaa marka masaariifta iyo qarashka aad u badan yahay sidaa darteed marka challengegaasna waa bilaabaa hadduu ilaahay karaa noqo sanadka cusub marka kusoo dhawaada gabdho badan ay weydiiyo Mansuur challengega sanadka cusub marka sanadka cusub challenge cusub aan bilaabayaa soo dhawaada gabdho badan waxaa jira challengegan aan ku jirin oo mar walba igu dhow Mansuur wuuna dhaafay mid cusub noo sameey laakiin challengegaas wax abaalmarina ma jiri doonto kan abaalmarin uu leeyahay laakiin kaas wax abaalmarina male kan laakiin markuu dhamaado gabar kasto ii soo duubtay videogeey duubtay ayadoo lacag koombadi fureyso ayadoo lacagti maarta tirinaysa ila soo wadaagto 3 gabdhood
aan rabaa inaan maaragtay kaalinta kood kaalinta laba kaalinta saddexaad gabdhaha galo oo lacagtii loogu talagalay hadday rabto way dhigi karta hadday rabto ka badan hadday rabto joogteen waxaana rabaa 3 wadan inay kala joogaan because hal wadan ma fiicno marka gabadhii hadiyada rabto gabadha hadiyada rabina just waxay ila wadaagi kartaa koombada ayadoo jarayso because muhiim ay taana dhiirigelinay ii tahay gabdhaha kaleetan waxay u tahay feedback faa'iido u tahay because gabdho badan baa ku baraarugayo oo laga yaabo aniga keyga inay u arkaan qoftan dhaqaale way taqaan way ku fiican tahay laakiin markay arkaan gabar kale oo shal wixii ku xumeedo maanta sameysay dhiirigelinay u tahay marka waxay idinka codsanaa markaa furtiin inaa ii soo duubtiin oo koombooyinka ah ila wadaagtiin haddaad laakiin rabtid inaa hadiyada heshid shuruudahaas oo dhan inaa martid waa laakiin haddii kale koombada bisa ii soo duubi kartaa adoo lacagta ka daadinayo marka hadda waxaan sameynaynaa lacagtii aan ku ridaynaa marka waa arkay waa duuduubaynaa marka hadda waxaan sameynaynaa gisiceyna kaasa kontonka eero waa kaas kontonka laalaabeynaa meel ay lacag ka gasho male aada u buuxa konton ama 67 kana waa 20 meel ay lacag ka gasho malaha marka waa kaasa maxaan ku dhigay saca waayaan shilimaan ku riday marka shilimaantii ku jiro uu buuxa meel lacag laga geliyo male waxaan u maleynaa gasaca inaan bedeli doono waxaan kaa codsanayaa haddaa challenge-gan ku jirtid videoga inaad like saartid inaad comment ka bixisid inaad ugu yaraan 3 qof u share garaysid 3daba haddaa ii samaysid waad i farxad gelisay waana kaaga mahad celinayaa gabdhaha markasta kommentiyada quruxda badan ii soo qoro markasta i support gareeyo markasta i garab taagana waxaan idin leeyahay miisaanka xasanaadka ilaahay idin saaro qalbiga idinka ogsooni because haddaanan haysan dad i support gareeyo dad i daawado dad maaragtay feedback ii soo celiyo dad kommentiyo qurqurux badan ila wadaago waxay iska bedeleen anigana dhiirigelin bay ii tahay oo waxaan dareemaa waxaan juhdigan faraha badan aan YouTube ku bixinayo anoon dhaqaale badan ka sameynaynin in maaragtay dad ka faa'iidayo inay jiraan sidaa darteed videoga xiga intaa ku kulmi doono walaashin Mansuur oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu